ما شاء الله maanta meeshan waxaan ka soo binay isku aad oo midaysan 22 Oktoobar isku aadkaas oo ka dhigay garoonka weyn stadium awu oo la ka garoonka bariga dhexe isku aadkaana la sida waxaa sameeyay maalinta Isniinta waxaa bilaawaytay Jambaluul iyo Midnimo maalinta Talaadada waxaa dhiilaasay Wahool iyo FC Aitiro maalinta Arbacada waxaa dhiilaasay FC Goday iyo New Star maalinta Khamiista waxaa dhiilaasay Future Dayah iyo Kulka Siigaale maalinta Jumaata waxaa dhiilaasay Balambalis iyo Lions Star maalinta Sabtida waxaa dhiilaasay Dayah iyo Al Ajaib Axadda waxaa dhiila doontay kooxda Opel iyo Al Ahli Isniinta waxaa dhiilaasay Halgan iyo Dabsaar Talaado waxaa dhiilaasay Gantaalaha iyo Supershell Arbaco waxaa dhiilaasay New Star iyo Dooday Arbacadan waxaa soo dhamaay doontaa groupkan oo knock-out-ka ah Turay Nation iyo Dooday koox walba waxaan rajoonayaa isboortigan oo isdhexgalka bulshada ah koox walba nidaamka isboortiga dhammaan 22 Oktoobar walaalintan ka martigeliyono munaasabadaasi oo ka dhigi doonto garoonka New Star koox walba waxaan ku codsadaanay shaqada ma anfuran guddi kaliya wixii New 22 Oktoobar ka tirsan dhamaantiyo mid iska ay wada shaqeynta gacmo wada jir ay wax ka gooyaan dhammaan oo wada shaqeeyo ilaa hadda ma shakhsi oo horwado bismillaahir rahmaanir rahiim وأنا كفراسني ولكن موسى على مدار أو هذا القصة دواجي إلهي وعن كرجيان هذا البدن حام بوشي إلهي وعن كرجيان سبحانه وتعالى إلكن ولا نيجي سداعة نمئه يو واحد إن أنا كجوانو سن نظام أو بلاي جرنا مر على مر ولب وحن جالنا إن أو مرنا دكان نسكسو دواينو نسكين شانو ومارت ولا لماذا واحد تراس ولا الكعدي بينا يسد كرتي يا رئيس الكرت dadka waxaan ka baaqayaa dad alaala dad sports jecel in ay ka soo qayb galo koraan xafladaas munaasabada oo la dhigi doono garoonka New Star